السلام عليكم. maanta macaawa kolbakii ay ku tahay waxaan idinla wadaagayaa mowduuc muhiim ah oo ku saabsan saaxiibka, rafiiqa, wehelka iyo qof kasta oo noloshu ay idin midayso. haddaba ka hor dhici maayo mowduuceena ee ku soo dhawaada barnaamijka. waa run in xiriir kasta oo saaxiibtinimo oo laba qof dhex mara uu ku bilowdo kalgacal iyo xiise aad u sarreeya, laakiin taa micnaheedu maaha inuu ku waarayo wanaagaas. marmarka qaarkoodna wuxuu ku dambeeyaa xiriir suna oo qofka noloshiisa burburiya. maxamed daaha oo ah qoraaya dhakhtar ku xeel dheer caafimaadka nafsiga ah ayaa buuggiisa xidhiidha khatara ama dangerous relationships la yidhaahdo waxa uu ku sheegayaa qaar ka mid a xidhiidhada khatarta ku ah caafimaadka nafsiga ee qofka iyo mustaqbalkiisaba. sidaa awgeedna ay waajib tahay in qofka laga daweeyo sida xanuunada kale si aanu xidhiirkaasi u sii waarin. sidoo kale cilmi baadhayaal ka tirsan jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ayaa muddo 75 sano ah waxay baadhitaan ku sameynayeen xidhiidhada dhowr jiilo kala duwan si ay u gartaan raadka uu xidhiidhka aadamaha dhex mara ku yeesho noloshooda, gaar ahaan marka uu noqdo xidhiidh sanado badan jira. bilowgii daraasadda waxay cilmi baadhayaashu aaminsanaayeen in sababta kala duwanaanshaha ku keenta nolosha bini'aadamku ay tahay lacagta, magaca, ama inuu qofku dhowrto quruxdiisa iyo muuqaalkiisa dusha. laakiin dhammaadkii daraasadda waxay ogaadeen in waxa ugu badan ee raadaynta ku yeesha caafimaadka nafta ama jidhka ee qofku uu yahay xidhiidhka wanaagsan ama ka xun ee uu la yeesho dadka kale. sidoo kale maxamed daaha waxa uu buuggiisa ku sheegayaa calaamadaha lagu garan karo xidhiidhada caafimaadka qaba oo ay ka mid yihiin: 1. inaad isku aragto shucuur nafsi oo ah in mar kasta uu qofka kale kula joogo uu helkaaga yahay kuna danaynayo xitaa haddii uu jidh ahaan kaa durugsan yahay. 2. in labada qof ee xidhiidhku ka dhexeeya isku arkaan dareen isku qasbaya kaas oo ah isdhegaysi iyo iska warqab. 3. ixtiraam isweydaarsi ah iyo is-aqbalaad bilaa shuruud ah, in xaaladaha ficilada iyo hadallada qofka kale aanay dhibin. inuu arki waayo iinta saaxiibkii iyo meelaha uu ku fashilan yahay micnaheedu maaha inuu ku waafaqsan yahay ama uu sax u arkayo, balse waa inuu go'aansaday inuu sidiisa ku aqbalo, dulqaadna uu yeesho ama uu ka shaqeeyo sidii uga caawin lahaa iska beddelidda habdhaqankiisa noocaasa. 4. inuu iska ilaaliyo isagoo cid kale hadalkeeda ka duulaya inuu aragti qaldan ka qaato saaxiibkii ama uu xukun iska gaadho isagoo aan hubin waxa jira. 5. in mar kasta uu dareemo inuu fahamsan yahay, inuu dareenkiisa la socdo, inuu mowqifkiisu la midaysan yahay, iyo inuu si fudud u aqbalo waxa uu ka dalbado ama uu u soo jeediyo saaxiibkii. 6. xidhiidhka caafimaadka qaba waxa uu ka xeel dheer yahay oo ka fog yahay jilista iyo iska yeelyeelka. waa in qofku uu isaguun ahaadaa isagoo aan dadaal u gelayn inuu iska dhigo qof kale si uu saaxiibkii u raalligeliyo. waa yahay intaa marka laga yimaado, haddaba maxay yihiin noocyada xidhiidhka sunta ahi? xidhiidhada labada qof dhex mara qaarkood ayaa sun ku ah nolosha labada qof midkood, sida uu doctor maxamed daaha buuggiisa ku sheegayna waxaa ka mid ah: nooca 1, qofka isu boga ama qofka isla weyn. waxaa lagaaga digayaa xidhiidh aad la yeelato qof nooca ay culimmada cilmi nafsigu ku tilmaamaan narcissist, oo aynu ku macnayn karno qof isagu isu bogay oo aan arkayn waxaan naftiisa ahayn. qofkani wuxuu kaa rabaa inaad u aragto inuu qof weyn oo karaamo badan yahay, wax kasta oo uu sameeyo ama yidhaahdaana uu yahay waxa ugu weyn ee ugu mudan ee la sameeyo ama la dhaho, xitaa haddii ay caddahay in waxa uu samaynaya uu keenayo natiijo xun ama dhib ku ah dadka kale. isagu wuxuu kaa rabaa inaad u aragto inay tahay wax fiican. qofkani haba yaraatee ma ilaaliyo mana ilaalinayo dareennada dadka kale. waa keligii qumaanays la saxan, wax kasta oo isaga horumarinaya naftiisa ayaa mudnaanta koowaad mar kasta la leh. waxaanay ku tahay masiibo iyo murugo weyn inaad dhaliil ka sheegto isaga ama aad kartidiisa iyo muhiimadda hawsha uu hayo shaki geliso ama hadal ka keento. nooca 2 waxa uu caan ku yahay qofkani inaanu keligii waxba qabsan karin. qofkani waa saaxiib doonaya inuu si buuxda adiga kugu tiirsanaado mar kasta, wakhtigaaga oo dhanna uu kuu baahan yahay, diyaarna uma aha haba yaraatee inuu mas-uuliyadaha qaybtiisa qaato ama keligii uu wax qabsado la'aanta. waa qof mar kasta calaacal iyo cabasho taagan oo dhinaca tabanaba xun nolosha ka eega. waa fulay aan ku dhac lahayn oo xeeladihiisa nololeed ay kooban yihiin. waa qof mar kasta diyaar u ah inuu sameeyo wax kasta oo ay ku kacayso raaligelinta qofka ay wax ka dhexeeyaan. sidoo kale qofkani waxa uu caan ku yahay inuu yahay haba yaraatee qof aan lahayn wax kalsooni ah. isla marka aad la kulantaba waxaad ka dareemaysaa inay kalsoonida naftiisa ku qabaa aad u hooseyso.
haddaba haddii aad ku jirto xidhiidhka noocan ah iska jooji, waayo waxa uu kugu keenayaa hawl dheeraada iyo mas-uuliyado joogto ah oo aanad mararka qaarkood qaadi karin. sidoo kalena waxa uu kugu noqonayaa culays aad ku qasban tahay inaad mar kasta buuxiso iintiisa iyo waxa uu tabanayo. nooca saddexaad waa qof aan garasho lahayn haba yaraatee. marar badan waxaa dhacda inuu qofku duruufo hore oo xidhiidhadiisii hore ah iyo natiijooyinkii uu kala soo kulmay uu kula dul dhaco qof uu hadda xidhiidh dhex marayo, kadibna isagoo aan isogeyn ayuu qofkii ka soo qaadayaa sidii qofkii hore oo kale, wanaag iyo xumaan labadaba. waxaa dhacaysa qofka oo aan arkaynba qofkan uu saaxiibka leeyahay shakhsiyaddiisa iyo waxa uu sameeyo ama odhanayo. waxay inta badan ku dhacdaa dadka xidhiidhada jacayl ama nacayb ee hore soo maray. sidaa awgeed haddii aad adigu qofkaa tahay, waxa fiican inaad dib u baraarugto oo aad ogaato inuu qofkani qofka leeyahay isla markaana aanu ahayn qofkaagii. haddii aanu adiga ahaynna waa inaad ka feejignaato in qofka aad la xidhiidhaysaa uu yahay qof xaaladaas oo kale soo maray, kadibna kugula dhaqmo adiga sida xaaladahaas hore ee aynu soo sheegnay oo kale. nooca afraad, qof xanuun dhimirka ah qaba. marka laga tago xanuunka dhimirka ee waalida caddaanka ah qofka ku keena, waxaa jira 10 xaaladood oo caafimaadka dhimirka waxyeela, kuwaasoo marar badan aanay dadka ku xeeran bukaanku dareemin ama rumaysan karin inuu dhimir ahaan u buko qofkani oo u haysta inuu qof caadiya yahay. Dr. Daha waxa uu buuggiisa ku sheegayaa in xidhiidh aad la yeelato qof aan dhimir ahaan caafimaadkiisu buuxin ay tahay khatar noloshaada burburin karta. calaamadaha uu sheegay inaad qofkan ku garan kartana waxaa ka mid ah inuu yahay beenaale, haddana awoodu leh inuu naftiisa kuu qurxiyo oo aad xiise u qaado xidhiidhkiisa. waa qof kalgacal badan muujinaya, laakiin runtu ay tahay inaanu naxariis iyo jacayl midna haybsan weligii. qof naftiisa iyo nafaha dadka ku xeeranba dhib iyo culays ku haya, laakiin huwan dahaadh qurux badan oo cidda ku xeerani aanay dhibsanayn. waa qof aragtidiisa, hadalkiisa iyo habdhaqankiisuba dheeldheel iyo ciyaar ku dhisan yihiin. waxaanad halis u noqonaysaa inuu badcagaha kuu geliyo oo mowqif aanad lahayn iyo aragti aanad la dhacsanayn aad difaacdo. waa qof rabshad iyo cadho u samaysan, tale iyo waanana aan qaadan haba yaraatee, ugu dambayntana kaa dhigi kara qof bulshada kale ka go'a. haddaba xeeldheerayaasha cilmi nafsigu waxay ku talinayaan inaad sida ugu dhaqsaha badan u joojiso xidhiidhka saaxiibtinimo, guur ama nooca xidhiidh ee idinka dhexeeya qofka noocan ah, isla markaana aad ka fogaato iskana ururiso intaad iska ururin karto. nooca shanaad, danayste, la saaxiibidda ama la jaal noqoshada qofka leh dabeecadda inuu ku danaysto wanaagga qofka kale. qof habdhaqan wanaagsan iyo dhimirsanaan leh marka uu kugu og yahay, dan uu leeyahay oo aad u quminaysana uu og yahay, waxa hubaalah maalinta uu dantiisa kaa waayo inuu masaafo dib kaaga durkayo. isla markaana cadho iyo caloolxumo badan ayaad ku arki doontaa maalinta aad dantiisa u oofin weydo. sidoo kale waxaa xaqiiqo ah inuu cabasho badan kaa tirsan doono. mar kasta oo uu ku arkana waxa uu ku odhan doonaa waadigii maalin hebla sidaa iyo sidaa ii galay, waxaana hubaala inuu naftaada iyo noloshaadaba ku nacsiin doono maadaama aad saaxiib ka dhigatay qofka noocaasa. qofka dabeecadahaas ku danaysiga ama ku shaqaysiga ah leh, saaxiibtinimadiisu waxay leedahay khatar weyn oo ah inuu maalinun kuu soo raaci karo cid adiga cadow kugu ah oo uu isagu dantiisa ka dhex arkayo maalinta ila waa danaystee. haddaba taladu waxa weeye sideed uga baxsan kartaa ama aad isaga ilaalin kartaa isla markaana uga feejignaan kartaa xidhiidhada sunta ah. noocyada xidhiidh ama saaxiibtinimo aynu xusnay inay sun yihiin waa kuwo inta badan uu qofku debinkooda ku dhaco isagoo aan dareensanayn ilaa uu badweynta dhibta badan dhex maqurto mooyaane. haddaba waxa hubaala in dad badan isweydiinayaan bal inuu jiro hab lagaga badbaadi karo, halka kuwo kalena ay quus ka istaagaan in xidhiidhkani uu yahay mid la iska furdaamin karo. mar kale Dr. Maxamed Daha ayaa arrintan lafteeda buuggiisa kaga hadlaya isagoo sheegay in Dr. Robert Freston oo ku xeel dheeraa cilmi nafsigu uu caddeeyey inuu jiro xidhiidh malaawaala oo dadka qaarkood u fahmaan inuu qayb ka yahay xidhiidhka caadiga ah. inkastoo uu dhibaato iyo caqabad ku yahay, haddana ay weli labada dhinacba isa sii dhex galaan, aadna isugu milmaan, taasoo ku riixda sii jirista xidhiidhka iyo isu dulqaadashada. waxaanu noqdaa xidhiidh u eg mid waalidka iyo ilmihiisa oo kale ah, oo mid kastaa uu xidhiidhka u dhowrayo sida waalidka iyo ilmihiisa. sidoo kalena waxa uu mid kastaa qaadaa mas-uuliyado aanay suurtagal ahayn in saaxiibka caadiga ahi qaado.
laakiin sida ay u badan tahay muddo kadib qofka xaaladdan ku jira waxa uu ku qasbanaadaa inuu xidhiidhka noocana ka firdhado kana xoroobo dabarrada malaawaalka ah ee ku xidhan. gabagabadii waxaan rajaynayaa inuu mawduucan idin anfici doono, isla markaana aad kala garan doontaan astaamaha xidhiidhka sunta ah iyo kabadka qaba ee fayow. nabadgelyo.